dhammaadka muuqaalkan waxaad aqoon fiican u yeelan doontaa waxa uu yahay penetration testing, noocyada pentestingka, toolska loo isticmaalo pentestingka, waxyaabaha ku muhiimka ah haddii aad rabto inaad noqoto pentester, iyo macluumad dheeri ah oo la xidhiidha penetration testingka. kusoo dhawaada muuqaalkan maanta dhalinyaro. Penetration testing oo badanaa loo soo gaabiyo pentesting waxay isticmaalaan cybersecurity professionalsku kaasoo ay tijaabooyin kaga qaadayaan security systemska. habkani wuxuu inoo ogolaanayaa inaynu qaadno gudaheelada systemkaasi ka hor inta aysan hackeriska xuni soo weerarin systemkaasi. Penetration testing waxaynu ku ogaanaa meelaha uu daciifka ka yahay systemku in laga soo geli karo ka hor inta aysan dhicin in hackerisku ka faa'iidaystaan oo halkaasi ka soo galaan. intaas ma isla fahanay. haddaba noocyada pentestingka waxaa ugu waaweyn 3 qayb: black box testing, white box testing iyo grey box testing. haddaba maxay yihiin 3dani? aynu ku horeyno black box testingka. kani waa marka qofka sameynaya penetration testingka ee baaraya duleelada systemkaasi iyo meelaha laga soo geli karaayay uusan wax fikrad ah ka haysan systemkaasi iyo sida uu design garaysan yahay. waxaana qofka sameynaya black box testingka istaagaya booska taagnaan lahaa hacker dhab ah kaasoo ah inuusan wax fikrad ah ka haysan systemka ee kaliya tabaarayo meel ka soo galo. habkan waxaa lagu fahmaa marka khatartu ka imanayso dibadda systemka. nooca labaad waa white box testing. waxaana qofka sameynaya white box testingku istaagaya booskii qof haya dhammaan designka systemkaasi ogna wax kasta ku saabsan systemkaasi, sidii qof haya source codeska iyo awoodda uu ku geli karo meelo badan. habkan waxaa lagu fahmaa marka ay khatartu ka imanayso gudaha systemka sida qof ka mid ah shaqaalaha. habkan white box testing waxaa lagu helaa macluumaad aad u badan oo ku saabsan duleelada systemkaasi maadaama uu yahay qof guda jira systemkii uuna arki karo meelo badan oo daciif ah, halka black box testingku uu ka taagan yahay dibadda systemka wax badanna ay ka qarsoon yihiin. nooca saddexaad waa grey box testing. waxaanu taagan yahay booskii qof wax ka og systemka balse aan wada ogeyn. waxa uu muuqan karaa meelaha qaar vulnerabilities ah balse uma wada muuqdaan. waxaanu noqon karaa sidii qof in badan daraasaynaya systemkaasi oo kale. haddii intaas kaga nimaadno noocyada loo sameeyo pentestingka aynu wax ka ogaano proseska la maro marka la rabo in la sameeyo penetration testing. proseskan waxuu ka bilaabmayaa in la balaagareeyo lana soo ururiyo xogta systemkaasi. kadib waxaa ku xiga in xogtaasi la analyse gareeyo ama la rogrogo si looga soo saaro loona helo meelaha ka jilicsan systemkaasi ee vulnerabilities ah ama boostis furan oo kale. intaas kadib marka la helo vulnerabilities waxaa ku xiga in la soo galo systemkaasi. halkaas marka la marayo waxaa ku xiga step weyn kaasi oo ah in la joogteeyo ama muddo badan lagu sii guda jiri karo systemkaasi iyadoo aan la dareemin. stepkan waxaa ka mid yahay stebyada ugu muhiimsan maadaama haddii systemka lagu guda jiri karo muddo badan iyadoo aan la dareemin ay cilada systemkaas leh ku keeni karto khatar badan iyo khasaaro weyn. stepka ugu dambeeya waa in la report gareeyo ama warbixin laga soo saaro ammaanka systemkaasi ee meelaha ay tahay wax laga bedelo. okay, intaasi waa proseska uu marayo penetration testingku. waxaa inoogu xiga toolska penetration testingka. kuwani oo softwarada ama toolska inaga caawinaya inaynu sameyno penetration testing. waxaana ka mid ah nmap aynu cashir hore ugu soo qaadanay kaasoo inaga caawiya inaynu helno gudaheelada networka. waxaa sidoo kale ka mid ah toolskaasi prep suite oo isna aynu hore u soo qaadanay iyo tools kale ee loo isticmaali karaa in lagu sameeyo penetration testingka. haddii aad rabto inaad noqoto pentester waxaa muhiim ah inaad aqoon fiican u yeelato fiilasha networkingka, programmingka iyo asaasiyaadka cybersecurity-ga, sida inaad qaadato shahaadada certified ethical hacker oo kale ama aad leedahay aqoonta lagu barto ethical hackingka. waxyagana meelaha qaar muhiim ah shahaadooyin ay ka mid tahay open security certified professional. haddii aad si qaasa u barato pentestingka muhiim ma aha inaad shirkado u shaqayso. waxaad si hor ah ugu shaqaysan kartaa xirfadaada adigoo gudaheelada aad heshid ka iibinaya shirkadaha leh systemyadaasi ama softwaradaasi. muuqaalkeena maanta intaas ayuu ka egahay. fadlan ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto siina sheer garayso si uu gaaro asxaab badan. mahadsanid.